السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لله. مid wax garanayo midaan wax garanaynin isku mid maahan. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Waxbarashada iskama timaado. Qofka ugu horeeyay dunida la abuuray Nabi Aadam. Ilaahay ayaa wax baray. Cilmigu ku noolaan lahaa dunida. Wacallama Aadama al-asmaa'a kullaha. Haddaba maxaa keenay waxbarashada inay dib u dhacdo? Sagaal qodob ay kaga hadlayaan aqoon-yahanada ayaa halkan kusoo koobaya. Qodobka koowaad 12 sano ee waxbarasho. waddanka Germany la yiraahdo ayaa waxbarashadan compulsory-ga ah ee 12 sanadood la dhiganayo raad fara badan ku leh oo caalamka intiisa kalena uu kaga daydo. ولا شيء هناك برائب. laakiin qaabkan waxbarashadu u dejisantay 12 sanadood ah ee marka dibana jaamacadda la gelayo iyo qaabka loo gudagelayo waxaan la dhiganayo waa wax dibadda inooga yimid. dadkuna intooda badan ama Soomaalida ha ahaadaan ama dadka caalamka ha ahaadaan waxa ay dhaxlaan ma jecla inay wax ka bedelaan ama kuma dhiiradaan ama waxaan oran karaa uma fiirsadaan saamaynta ay tahay ama qaabkan shaygu uu sameeyay. nidaamka reer galbeedku wuxuu qabaa qofku inuu qaan gaadho 18 jir markuu gaadho socon ma taa macnaheedu waxa weeyaan 18 intuu ka yar yahay qofkan waa in la ilaalin karaa meel lagu mashquuliyana lahayn karaa. waxbarashada nidaamkan 12 sanadood ku salaysan wuxuu ka dambeeyaa afkaar oranaysa qofku inta aanu 18 jir gaadhin ma gali karo suuqa ama shaqo ha noqoto ama waxana noqoto ama idan 12 sano in dugsi hoose dugsi dhexe dugsi secondary meelahan lagu hayaa waxa weeyaan in aanad wali gaadhin chance aad ku gali karto mujtamacaad kaga qayb qaadan karto iyadoo laga yaabo qofka muslimka in la rumaysan 15 haduu gaadhay waa qaan gaadhay magaalada dhinaca ka galo in 15 jir markuu yahay waxay ahayd inuu garanayo xirfad uu ku xoogsado qaabku uu noolaan lahaa qof mas'uuliyad qaadi kari lahaa idan nidaamka ku salaysan in 18 jir lagu qaan gaadho iyo nidaamka ku salaysan in 15 jir lagu qaan gaadha waa inay laba system waxbarasho kala gedisan lahaadaan bay ahayd. marka waxbarashada halka ka bilaabantaa horta waa primary-ga intermediate-ka iyo dugsiga sare intaas oo 12 sanadood qaata. aniga waxay ila muuqataa qaabkaas ay u dejisan tahay baan ka hadlaya marka hore inay tahay qaab disaster ah macnaha qaab waxa weeye runaantii dadka ku keenaya in badan oo kamid ah mushkilad. ardayga marka aad weydiisid 12 sanadood maxaa ku baxay wuxuu ka oranayaa qoraalka akhrinta iyo qoraalka iyo arithmetic waxa la yiraahdo divisionka iyo qaybinta iyo ugeeda iyo ka jarta intaas iyo multiplicationka koob iyo 20 casho ayaa la ogaaday inuu qofku inta ku baran karayo 21 days koob iyo 20 casho wax ku dhamaanaya balka waran hadii 12 sanadood qofka laga dhabay waqtigan aynu joogno qarniga koob iyo 20aad ilmuhu horu ka qaangaaraya xataa hore ayuu ka caqliyaysanaya because technology-yadan ayaa iyaga la dhalatay Soomaalidan garan marka waxa laga yaabaa ardaygii oo lagu tutuubayo inuu 8 ama standard 7 ama form 1 iyo soo dhigto inuu already sameyn u diyaariyay inuu shaqo tago suuqi galo. marka ardaygu maadaama uu diyaar u yahay inuu shaqo tago waa in loo dedejiyo wixii uu ku shaqaysan lahaa. tusaale ahaan maalin dhowto inaan gaari ii hagaajinayay xaafadan masalaha inaan yar aad u yar booha waxaan ku ilaa dhowr 10 jir ma soo uu shaqaysanayo income buu sameeyaa waliba gaariga sidoo uga shaqeynayo ragga waaweyn aniga iga smaan garanay. marka waan weydiiyay waxaan ku ka waran iskuulka hadda ku noqotay wuxuu ku dhuma baahnay iskuulku wuxuu boring waxa kama faa'iideyn industry-ga la yiraahdo kuweysiinka ama kitchada ama hudheelada oo kale qofka ilaahay hiba u siiyay cunto karinta ama hablaha adan ama inamaha adan iskuulka muxuu ka faa'iideeyay 12 sanadood markuu lamiyo waa waxba inanka waxa weeye transportation industry-ga imika faraha batay la isaga gooshayo wadanka guud ahaantii bal 12 sanadood arday guud ahaan ku wacnaan lahaa inuu muruqmaal noqdo iskuulka muxuu ka faa'iideeyaa waa waxba guud ahaan wadanka waxa ka socda ilaa iyo horta markii 180 sanadood ay nidaamkan u dejisan yahay waxbarashada 12 sanadood 180 sanadood maalintii la sameeyay ilaa iyo iminkana waxa jira niman aqoon-yahana oo dhaliila oo dadaalaya. qodobka labaad macalinka waxbarayo ardada. aqoonta iyo gudbinteedu waa laba kala jaada. qofku aqoon wuu garan karaa laakiin qof waliba macallin ma noqon karo. macallinimadu waa farsamo la barto. طبعا wax walba bini aadamku uu qabto qayb mawhibi way jirtaa oo ilaahay uu basharka siiyay laakiin haddana waxa jirta funuun hadaad barato xataa mawhibadaadu haday kugu yaray aad kobci karto oo qaabkii wax loo gudbin karay aad sameeynaysid
haddana waxaa timaada in qofku isaga oo aan macalin awooddii iyo kartidii iyo hibadii macalinimo aan lahayn in ay dantu ku khasabto oo masaariftiisa ka raadiyo hadba dawladdu inta ay geliso teacheriska macallimiinta haddii daryeelkooga yacni already kor loo qaado yacni ayay waxbarasha ay imanaysaa baan aaminsanahay anigu macallin waan ahay laakiin waxaan ka mid ahay macallimiinta dawliga ah ee salariga ah waxaan joogaa dugsi dawli ah markaasi waxaan ahay dadka aaminsan marka uu macallinku uu helo yacni wax ku mishaar wanaagsan ayuu wax dhigi karaa tayada waxbarashadu macallin tayadii kama soo hadho maamulka markaanu ka nimaano tayada waxbarashadu macallin tayadiisa kama soo hadho macallinka wax dhigaya wuxuu xumbaarsan yahay iyo culayska ku jira kama soo hadho TTC-deena waxa ku soo xaroodo saad ogtihiin waxa lagu soo xareeyaa dadka yacni 12aad ku dhibco u gaari waayaan baa lagu xareeyaa oo la dhahaa idinku dhibco idinma gaarin 12aadkii saa darteed maxaad noqonaysaan macallimiin qofkan waxaa lagu eedeynayaa inuusan 12aad u gudbi karin oo uusan waxbarashada qaybteeda adag uusan baran karin oo maca daalika waxaa loo dirayaa saa ay tahay haddana waxaa loo dirayaa inuu isagu intii wax yacni loo soo malmaluuqo xagga loo diro oo haddana jiilka dambe isagu la dego waxbuu soo baraya ninkii dhacayba waxbarasho loo dirayaa meel kale waxaa la dhahayaa adigu dhibcahaagu ma gaarayaan halkaas saa darteed waxaad aadaysaa TTC-da ninka galaya maalinkee waa ninka dadaal xumadiisu ama taya xumadiisu ay reebtay weeye ama qof mutakhasis ku ah macallinimo iyo teaching iyo qaabka wax loo gudbiyo maaha idan ilmihii yaraa waxaa laga yaabaa dhan inuu kaga daalo dhan inuu ku caajiso dhan macallinka iyo qaabka wax u dhigayo inuu fahmi waayo hadduu macallinku uu coach yahay oo roolka uu ciyaaraya uu yahay coaching waxa weeye qofkaad eegaysaa waxa uu ku wanaagsan yahay ma tihid qof adigu instruction ama wax gudbinaya qofku inuu wuxuu bartay soo celiyo laakiin waxbarashadeenu aynaysan noqon bangi aan wax dhiganayno ardayga bangigaas hadhowna aan leeyahay waxaygi isii bangiga waxaa dhigatay wixiila lagu soo bixin doonaa deposit maxaa ku xiga wax dhigasho la bixida ku xigta soo maaha shaygaa u dhiibatay intaanan kuu dhiibtay inta iga jawaab macallin kastoo annaga inaga mida waa inuu xil iska saaraa waxa ardaygan uu bartay qodobka ku xiga waxa waaye ee labaad inuu fahamsan yahay mafhuumka conceptiga waxa uu bartay waxa ay yihiin waa inuu yaqaanaa scientist wuxuu leeyahay haddii aad casharka fahamsan tahay ayaydaa u sharax waa ina ayaydaa fahamsiin kartaa cashar u fahamsan tahay adiga haa ayaydaa fahamsii ama cunug 6 jir ah fahamsii kan saddexaadna waa inuu ku dabaqi karo nolosha ku dabaqi karo macna qaacida waa kula yaa kale maxaa ninkaas nagu dhigay minus isku dhacay tabane iyo tabane isku dhaco togana noqday suuqa bakaaraha gee saa darteed ardaygu wuxuu u baahan yahay nin macallin ah ama sheekh ah ama ustaad ah oo tilmaamo inta isaga qiimeeya aqoon meeshuu marayo halkaa ka bilow ama taasaa hadda kula siman yidhaahda sida takhtarkii dawo ugu qora u baahan yahay qodobka saddexaad ardayga la rabo in la soo saaro nidaamka waxbarasho ee galbeedka ka jira waa nidaam loogu talagalay qof reer galbeed inuu soo saaro culimada educationku ama tarbiyadu ama culimada waxbarashadu inta aan laga waramin qofka maxaa loo dhigayaa iyo syllabus muxuu noqonayaa iyo waxaa laga waramaa qofka la doonayaa waa kuma marka ay mujtamacu ku heshiiyaan qofka ay rabaan مثلا waxaa la leeyahay wadan baynu joognaa Sweden qofka Swedishka waa kuma baa la isweydiinaya astaanta lagu yaqaan muxuu yahay waxa weeye nin walba candha cayrin wuxuu geliyay ayuu ka maara arda ka dhageyso jihada afarta jiho waa sameeyay laakiin afarta jiho ma yaqaan jaamacadahan ku aragay ardada noocaas haday soo qalin jabiyaan xagee maxay qabanayaan haday muddo u soo baxaan maxay qabanayaan hadii aan ugu soo daray dhaqan kalena ka waran waxa kaloo intaa dheer iskuulka waxa la soo dhigayaa muctaqadaad ka gedisan wixii aad rumaysnayd مثلا Darwinism theory Charles Robert Darwin قالكي إنجليزي لورين شري هي فكرة ديسي وفكرة عادية وإسكولة دسي عادية لوجو صادقة وحقائق علمية علما لوجو أكيسيو وفكرة خيامة ترى بدل لك السمايسن مثلا نبرس كمان صالحة شيء صوبنا نبرس كمان اللي يرادا كترسن وأحمد كيدا تقول داير كنا كيمي
dadna aanu weli gaadhin meel dhexe u sii socdo xaggee laga keenay waa suura ilig ayaa god laga soo qoday la yidhi waa ilig qaarna bini aadam uga eg qaarna daayeer uga eg xaqiiqa ahaan markii la baadhayna doofaar baabu noqday xataa waxay sheegayaanba ma ahayn laakiin ka soo qaad kii baa rasaab loo geeyo waxbaa lagu sawiray qof madaxana u yaray yar intan kalena soo toosay oo dhanna daayeer uga eg dhanna dad ilmihii baabkan baa loo soo dhigayaa muctaqad ah darwinismku inuu saxiyo dadku daayeer ka yimi baa macallinkii dhigaya iskuulkii iyo syllabuskii iyo sawiradii iyo fossilis iyo roobeena loogu rakibo waxaasoo dhan la isugu soo daray ilmihii muctaqadkan buu sitaa waa wixii iskuulka loogu soo dhigay waalidkii iyo aabihii ma sixi karayo idan waa dhib waxa ilmihii la weydiinaya la odhanaya tusaale ahaan hilibka noocee ayaad jeceshahay ma waxaad jeceshahay hadda waa afartaa kee saxa keed jeceshaa la odhanaya goobo geli ma goat meat baad jecesha mise camel meat mise bog meat hadda boogii baa ku jira dhaqan uma lihiin inagu waa hilib doofaar ilmaha yar markaa way ku sawirmaysaa wixii baa ku sawirmaya eygu inuu saaxiibka bani aadmiga yahay uu fiican yahay uu eygu noocaa yahay ayaa ilmihii yaraa loo dhigaya waa dhaqankoodii inaga dhaqankeenu waxa weeye eygu inuu nijaas yahay la iska ilaaliyo markaa bal ilmaha yar xataa eeg maskaxdiisa waxa lagu eegayo la gelinayo waa wax aad u kala duwan weeyaan ardayga yar marka aynu leenahay waxbuu baranaya dabcan waxaa laga hadlayaa caqligiisa in la kobciya la doonaya haddaba caqligiisa ma waxaa lagu kobcinayaa wax intay dad xafiis ama saraakiil ama niman waxa weeye dee waxbarashada yidhi annaga aqoon gaara kule intay fadhiistaan ay deetana wax soo diyaariyaan baa waxaa lagu shubayaa mise ardayga waxaa la kobcinayaa oo lala sheekaysanayaa waxa weeye waxa caqligiisa ku jira iyo waxa uu ka helayo oo xaggiisa ayay wax ka imanayaan ardayga iminka kuwacan public speechka oo kale tusaale ahaan dadka la hadla ama comedianka dee muhiim maaha in science loo dhigo marka dadka waxa lagu eegaya waa in laga hadalsiiyo waa in la ogaado waxa uu isagu ku wacan yahay marka macallinku maaha qof intuu wax soo qaybay waliba isagana qof u soo dejiyey systemka UNESCO oo kale intay ku soo dejiso macallinkii loo dhibay dadkan ardayga lagu shubayo sidaas maaha waa in ardaygii la isweydiiyo muxuu ku wanaagsan isaga la fahantiisa soomaad garan iyadoo laga duulayo muddo in marka lala sheekaysto ama waxyaabo uu xiisaynayo lidaalika culimadeenu mas'alada way ka hadlaan muslimiintu markay kala saarayaan xaddu tamyiiz goorma ilaah ilmaha wax kala gartay bay waxay ka hadleen weliba waxbarashada goormaa la geeyaa markuu wax kala sooco goormuu wax kala soocaa imise jir waxay isku raacsan yihiin intooda saxdii xad go-aan ma laha laakiin 4-5 bay ilmaha qaybo badan wax ku garan karaan waxaan garanayaa ilmo 5 jira oo Soomaaliyeed oo kula kulmay wadanka Switzerland magaalada Lausanne 5 jir 15 mise 20 juz oo Quraan xifdisan ma garanaya dugsi lama geyn laakiin cajalad video uu soo daawanayo Quraanka xifdiyay walaalkii oo 7 jir ahaana Quraanka oo dhan buu xifdisanaa haddaba ilmaha fahamkiisa iyo kala garashadu way kala horeysaa kuwana mar hore iyo durbo waxbay kala gartaan kuwana wax kala garashadoodu way yar daahdaa sidaas darteed da lama xadayn kare laga yaabo de maadaama ilmihii xeerar iyo qawaaniin dowladeed iyo marka la dejinayo ilmihiina ilmo aan qoys loo baari karin in xeer guud lagu dhufto waa laga yaabaa xataa shariicadeenu qof looma eego laakiin sida qaalibkaa la eegaa qodobka afaraad manhajka waxbarasho markaanu dhahno waxaa aas-aas u ahaa manhaj baa asaas u ah waxa weeye manhaj baa haga manhajku waa meesha loogu jaangoysa qofka loo dhigayo targetka wuxuu yahay yani qofka wax loo dhigayo ereyga manhaj macnihiisu waxa weeye waa dariiqo hab iyo hanaan qof loogu talagalay inuu raaco aanu dhinacaan uga bixin ilaa uu ka gaadhayo ugu dambayn ujeeddada la doonayo manhajka waxbarasho ee waddan kasta uu leeyahay waa dhaqankiisii dadnimadiisii ayuu u gudbiyaa qofka yar yacni ilmahaad dhashay genetically waa adigu kaa tirsan yihi laakiin siduu u fakeraya iyo caqligiisa iyo suu wax u qiimeynaya waxa wanaagga ugu muuqdayo waxa xumo ugu muuqdayo waxaasi ma genetically laguma gudbiyo yacni laguma dhalo idan waa in ilmihii looga tagaa wixii adiga kula fiicnaa waa inaad uga tagtaa adigu nolosha sibaad u taqaanay waxbaa kula fiicnaa waxbarasho hadday tay
hadday aakhiratay hadday muctaqatay waxba kula wanaagsanaa wixii kula wanaagsanaa waxaad isku daysaa inaad ilmaha uga tagto nidaamka waxbarasho markaa waa qaabkii aabbuhu iyo waalidku siyaasiyiinta iyo waxgaradku ummadda iyo afkaarteeda loogu gudbin lahaa ilmaheeda yara soo kacaya si aan iswirishnimadu u dabar go'in manhaj daraasiya oo loogu talagalay dadka qurbaha degan oo loo eegay dadkan iyo afkoodu inta uu leegyahay oo loo eegay suuqa iyo waxay kula kulmayaan oo loo eegay muctaqadaad ka soo horjeeda iyo aragtidooda oo loo dhigayaa ilmaha kani ma jiro maadaama aanu syllabus jirin waa wax iskaga socda si routiina iskaga socda uun ku day waa asaaliib kala gedisan oo ninba uu mid iska ikhtiraacday ama uu ku soo bartay uu daraasaynayo idan manhajkii maaha manhaj muqarar ah oo ardayga waafaqsan manhajka ayaa la isku taraygarayaa in mar kasta lagu kordhiyo isbedel ama isbedel lagu sameeyo manhajkaasna wuxuu u baahan yahay cid maamusha ama management buu u baahan yahay dadku waa manhaj mida markay leeyihiin hal meel ilmaha uulada ilaa jaamacadda markuu ka baxayo hal manhaj oo xukuumadda ama dawladdu ay gacanta ku hayso iyadoo ay design garayso qaabku yahay kaasaa laga bixi karaa oo inu dad mida loo soo saari karaa laakiin mushkiladda maanta haysta xataa qof keliyaato oo inaga mid ah waxay mushkiladan haysataa odhanaya maaha mushkiladan haysta waxa weeyaan dhowr iyo labaatankaa sannadoodba manaahij noocyo kala duwan ayaa ubadkeena loo dhigaya maxaynu doonaynaa markaa inaynu qaabkeen u ekaano marka ragga waxaan dhihi lahaa manhajna waad u baahantihin in culimmada dib intay ugu noqdaan iyo dadka hortood wax soo bartee jidkan soo tijaabiyey meeshan lagu soo jabay keligeed iyo meel cidlaha ku jabine inay dhahaan manhaj kale noo saxa mustawahana naga qiimeeya mar walbana ay talada kula soo laabtaan bay u baahan yihiin qodobka shanaad luqadda wax lagu baranayo 19 wadan ee dunida ugu horeeya wadan waliba afkiisa wax ku dhiga wadan waliba afkiisa wax ku dhiga waxay yiraahdaan 500 ee jaamacadood ee dunida ugu horeeya mid walba afka wadankiisa lagu dhigaa Sweden way awoodi kareen inay tiraahdo buugagto dhan Ingiriisian ka dhigano iskuulka raaf Ingiriisiga lagu dhigo way iyagoo 8 milyan ama 9 milyan ay Swedish u daba wadaan way Norwegian 5 milyan ay af Norwegian u daba wadaan way Denmark 5 milyan u daba wada dunida maxaa cid waliba afka 5 milyan iyo 4 milyan 3 milyan maxaa ku dhajiyay afkooda waa culuum dhaat waa culuum alhuwiya waa dadnimadooda wixii muujinayay cidna ma rabto inay dadnimadeeda weydo waxbarashadu waxay ka dhaxaysaa bulshada dhammaanteed maadaama ay ka dhaxayso aabbihii iyo hooyadii Soomaaliyeed ama aanay waxna qorin waxna akhrinin ama ay qoraan akhriyaanna af kale ay ku qoraan kuna akhriyaan waa afkan yaryarku ay wax ku sitaan aanu ku garanayn odayga waxa laga yaabaa inuu af Carabi ku soo dhigtay ama inuu Ingiriisi ku soo dhigtay ama inuu af Soomaali ku soo dhigtay buugagta yarna meesha lagu dhigayo wuu garanayaa laakiin dee afkan Swedishka ee aad moodo dad bukaayna ku wada hadlayaan marka la wada hadlayo waxba odaygu kaga hadli karan maayo xagga Norway markaanu joogno way istacaydeen waxay yiraahdaan nin Swedish ayuu ku yiri bay mid Norwegian war miyaad xanuunsanaysaa may buu yiri Swedish baan haybu ku yiri yani xagga Norwegian markaa waxay tilmaamaan Swedish inuu yahay dad jilicsan oo caynkaasi ala kulli xaal afka ninka uu Norwegian ku sheegaya inuu buko ninka ku hadlaya ee wax ku dhiganaya ee wax ku bartay iyo aabaha guriga jooga ama hooyada guriga joogta isma fahmayaan Soomaalinimadu waa maxay waa af haddaad afka weydo waad Soomaalinimo waayaysaa haddaad afka weydo waad Soomaalinimo waaya afku waa waxa ugu weyn haddaad muslim weydana haddaad af weydo Soomaaliyaad ka baxday Soomaalinimada ka luntay haddaad diin weydana dee muslimnimadoo dhan baad ka baxday haddaad diinta hayso laakiin afka aanad haynin waxaad la mid tahay dee Bangladeshka muslimka iyo Hindida iyo Pakistaanta iyo Turkida iyo dadka kale ee muslimka baad la mid tahay qof muslima oo kamid ah jamaacada muslimka tahay laakiin ma tihid identity-gaan rabay ee Soomaaliga ahaa qodobka lixaad kala soocida aqoonta adduunka taala ee bini'aadamku bartaa waa 3 nooc waxyiga la soo dejiyay ka waramayno waxaynu ka waramaynaa aqoonta basharku uu haysto waa 3 qaybood mid afraad ma leh bay yiraahdaan
qayb waxay ku tilmaamaan inay tahay alculuum asiyaadiya waa aqoomaha dunida lagu hogaamiyo taa cidna laysma baro cidina isma siiso waana basaasidda dunida ugu tirada badan leh meesha ay ka dhacdo maalan waa culumta nuclear powerka maalan waa culumta fadaaga ku saabsan maalan waa culumta gantaalaha dhaadheer iyo wixii la halmaala maalan waa culumta hub oo dhan ku saabsan maalan waa culumta teknolojiyada gaarkaa ku saabsan waddanna waddan ma siiyo cidina cid ma siiso waa la kala xadaa uun tuugay ku socotaa walidaalika baa imika waxaa maqlaysaan china oo reer galbeedku leeyihin waa la cunaqabataynaya 20 shirkadood oo china ah waayo tuugadii bay badiyeen bay leeyihin waxyagiiba intay xadeen ayay china dib uga soo saareen waa aqoonta la isku dilo xataa haddaad adigu istiraahdo waad samaysan kartaa waa lagugu dilaya laguma ogola inaad soo gaadho waxaad maqli waddan baa gantaale cirka loo duruu samaysanayo waa loo diiday waa ka mamnuuc dee nuclear iyo isaga baabkaa iska daa waa aqoonta lacagta dhasha مثلا شركات كواوين الدنيا جرا شركات هنا سرتها ما بحسه مرسيدس وحو مرسيدس كويا هي إنه قرصانين يشرتان الدنيا كلا لا أوجين هاي هدي لا لا أوجاد الدنيا ده وده مرسيدس بين والله فولفا وحي فولفا كتاي إنه قرصان بشرتان الدنيا لا قوانين هدي أنت على لا قرطو الدنيا وده فولفا قال عيد ولا فولفا وصار لهيد إذن أقونتا وحلا وأقون سيادي ولا اسمه سيو لا اسمه نبره dunidu inta badanna way kala xadaa aqoonta labaad qaybta labaad ee aqoonta waxay yidhaahdaan waa culuum alhuwiya wadaat waa culumta identityga waa diinta waa dhaqanka waa afka huwiyada ama identityga bulsheed culumta muujisa aqoonta cid waliba waxay jeceshay cidda kale inay ku faafiso انت هذا اللقاطات تعيش صحيح كما حقوق بني ادم كي حريات كي ديمقراطيه waxaan ay sheegayaan waxay rabaan inay waxay ku bees gareysantay iyaga thaqaafadoodii inay dunida oo dhan qabsato diimuhu diin waliba waxay rabtaa inay iyadu korayso dunida qabsato cid waloo aflihi waxay rabtaa afkeedu inuu noqdo maxay mid dunida qabsada cid kasto dunida joogta waxbarashadeeda rasmiga waxay ku salaysan tahay dawladaha nooli inay qadiyada ilaashadaan marka nidaamka tacliimiga iyo miidiyaha iyo culture-ka iyo qaanuunka iyo wax oo dhan waxa shape gareeya identity-ga bulshadu ay leedahay qaybta saddexaad ee cilmiga waxay dhahaan waa al-culuum al-mushtaraka bayna waa culumta bini aadamku wadaago waa waxaan jaamacadaha lagu dhigay tirada badan leh qaybta kale bini aadamku oo dhan baa wadaaga hadday dhaqaalatay hadday siyaasadtay hadday idaaratay hadday sciences tahay hadday handasatay hadday engineering tahay hadday طب tahay hadday waa waxa jaamacadka markaa tagtaan lagu professorka jaamacaddan jooga hadduu doono iska tagayo jaamacadda Mareykanka ka dhigayo ka xagga kale jooga ay xagga kale dunida oo dhan baa wadaagta buxuusteeda la isweydaarsadaa aqoonteeda la isweydaarsadaa waa falas waa wax dadka ka dhaxeeya waa wax bulshadu aadanuhu wada leeyahay gebigeena waxaan wada baranaa IT وإمك وضعك سيد اللي بدنا وحاول برنا واحد هذا BA Business Administration و IT وبزنس Administration وروح حوله أو ينام برنا صمها وأو معدنته أو معدنته اللي تكون قرنا ما أنت هذا برنا جيولوجي هذا برنا جيولوجيست هذا ما أنت لما قرتين هذه قاو صوبة معدنتين اللي تكون قرته برو جيولوجي برو حولها اللي دي قبل الدوفيا ما أنت هذا برا حولها سيد الله نقول veterinary هذا هانلد أما سيد الله داوي واللايف ستوك مارتي لقاليس الله واد برا له قاب كلو لقاليس اللايف ستوك حولي لو لقاليس حولها اللي دي لما دوفيين مالته لما يراهدين حولها جيران بال سولو في سنة لما يراهدين هذا برا له ما أنت كلونك نو برا فيشري قاعد برا له وأوشيانولوجي نو برا له بدهنا إمك بدنا إلى kuwa leh ma soo fariisteen adaa ilaan ka celin lahaa waxaas bay gurtaan ka joogaan leed aad dalkan ugu faa'iideyn lahayd wixii ma barano fursadii sababta daraadeed waa nalaga faa'iideystaa war waxa faa'iideysanaya waa shisheeye adigu ama Mareykan joog ama Ingiriis joog
ama hargeysa joog waddanka adaa iska leh cid kaa xigta ma leh waddankan annaga unbaa iska leh soomaali baa taa lagu leeyahay waddankaagii aawo shaqo waa haysanaa beeraan haysanaa xoolaan haysanaa baddaan haysanaa macdan baan haysanaa waxa waddanka aan haysanno aan isbarno waxaan oolinayaan isku mashquulin waa siyaasad gumaysi uu wata waxaan gumaysi baa nagu kala mashquuliyey ummad ama waddan waxa uu horumarka ku gaadha waa cilmiga cilmiguna waxa weeye qofku waxa uu ku wacan yahay sida gaarka ugu wanaagsan yahay in goor hore lagu hago علومta مثلا طبيga iyo caafimaadku dad yaqaan in la helo waa waajib ummadu diin baana waajibis ilaahay baa loogu dhawaanaya علومtan jidadka iyo engineerinka qaybihiisa kala duwan dad yaqaan in la helo waa waajib tan gaadiidka dad yaqaan in la helo waa waajib علومtan diin ahaan cibaadadaadii qayb aadan u baahnayn iyo ka adiga shakhsi ahaan laakiin ka ummad ahaan marka la yiraahdo horta culumtan oo dhan marka koobaad waa culum ummaddu u baahan tahay marka labaad dhammaan waa culum islaamiya wixii sharcigu xarimay maahan labadubana way isdhammaystiraysaa culumta shariicada ninka ku takhasusayana inuu tan wax uga bilaaban yahay tan kale cidda ku takhasusaysana العلوم الشرعية أساسيات عبادات كي الله معامل كي أحكام تحقق بالله تاوي طريقة قوة أكسن qodobka toddobaad qalabka waxbarasho oo markaa waxaynu oran karnaa taageerayaasha manhajka markaynu macalinka ka nimaadno waxaa ka mid ah laabareeriyada ay kutubta taallo oo ama dee electronic ha noqdaan sida imika tahay ama hard copy kuwii hore ee dee shelfka loo guri jirayba ha noqdaan marka waa inay laabareeriyadiina ay diyaar ahaadaan oo ardaygii uu helo meel wax ku akhrisan karo laabis baa jira laababku iminka way fara badan yihiin oo dee kii chemistryga ama saynisyada shaybaariyadii kuwii shaybaariyadii maalan dee sayniska oo kale loo baahan yahay iyo kuwii computer labs waa in la helo laakiin waxaa nasiib darro ah ardaydeennii inaan engineering ka soo baxay ama telecommunication ka soo baxay isgaadhsiinta oo haddana aan mashiinba arag wixii uu ku shaqayn lahaa aan aragba oo warqada intoo laga baray iyo sabuurad la leeyahay injineer baa tee soco amba isgaarsiinta taxaya toco waa nasiib darrada weyn ee Soomaaliland ku dhacday qodobka sideedaad goobta waxbarasho waxaan xaqiiqo ah waalidka haddii aad wareysatid way ka qaylinayaan iskuullada sida u dhisan yihiin iskuullada dhismahooda ayaa iyaguna ah arrin muhiim ah marka qaabka iskuullada loo dhiso la iskama dhiso oo inta badan dad badan baad isu keenaysaa qaar baa xanuunsanaya qaar baa ma garanaysaa dhibaatooyin kale leh marka haddii aad meel yaroo cidhiidh yar la isugu keeno aan hawo lahayn waxaa laga yaabaa ilmo yaroo keliya bukaada inuu raaciyo marka standard waa inay yeeshaan iyaguna yacni waa inay yeeshaan standard lagu ilaaliyo oo la yidhaah waxa weeyaan halkaa waa inay nooca waa inay noqdaan waxaa jira waxyaabo kaloo loo baahan yaho instructional technology la yidhaaho mathalan sabuuradihii habka loo samaynayo visual aids waxa la yidhaaho waxyaabahan ma garanaysaa qaar deetii lagu tusaayo ardayda hab muuqaal iyo ma garanaysaa kaa laftiisuna waxa weeyaan mid kale loo baahan yahay marlabaadkana dhinacankeyga waxay tahay iyadoo fursad ganacsi loo arkayba dadka tijaarta ama dadka doonaya maanta inuu meherad furto markuu suuqa yimaado yidhaha warriya maxaa dhacaya iga iibsamaya waxaa laga yaabaa in lagula taliyo la yidhaahdo meesha ugu habboon ee businesska ugu habboon waaba iskuul furo marka taasina xaggaa dad tijaarahoo iyagu profit uun raadinaya baa soo galay qodobka u dambeeya sagaalaad saacadaha waxbarasho muhiimadda la saaro teaching hourska saacadaha wax la dhigayo ilmaha imise saacadood ayaa la doonayaa in lagu fuliyo manhajkii marka anigu waxaan qabaa de inay wasaaradda waxbarashada iyo waddanka guud ahaantii aqoon-yahankiisu ay si daacada oo ardayda de ay cilmi baadhis sameeyaan cilmi baadhis cilmigu meel walba ku jira laakiin waxaa laga yaabaa halkan markaan fadhino maanta awood inaan leenahay baraaca ah inaan soo bandhigo dhibaatooyinku siday u jiraan laakiin inaanan in badan xal idiin helin baa laga yaabaa waana dhib inaan waxna sharxi karo badiilna aanan keeni karin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ولا شيء هناك برائب